marka waxaan leenahay walaalayaalow ilooba waxa dhacay ilooba waxaana wax ka sii foolxun bay maalin walba imaanaysaa markii colaadu timaado laakiin wada deganaanshihiin waa wax fiican qofka balanbal ka yimid markuu gurceel maanta u soo adeeg tago qofka gurceel ka yimidna markuu balanbal u soo adeeg tago wax ka fiican ma jirto wax ka xun ma jiraan in la is aamin waayo oo caruurtii iyo naagihii iyo ilmihii iyo raggii ay kala dhuuntaan waxaan leenahay aan baaqaas u direynaa madaxdayada naga koreysa oo dawladda galmudug dawladda federaalka marka runtii walaalayaal waxaan idinku baaqaynaa hadaad leedihiin culimaawidiin hadaad leedihiin waxgarad hadaad leedihiin ururo bulsho oo kala duwan dumar dhalinyaro in colaada la joojiyo dhaqaalaha la aruurinayo oo colaada loo aruurinayana lagu taakuleeyo walaalaha baahan oo dhibaatada haysato oo xooli ka dhamaadeen waxaan leenahay walaalayaal iscafiya ilaahayna ka baqa dagaal dan ma ahan deegaan kuma dhaqmo dadna kuma dhaqmo ilmana kuma dhashaan waxa ku dhinta walaal waxa ku dhaafay walaal waxa ku dhacan walaal waxa dhimana waa walaal waxa keenaya daaqa iyo reeguraaga iyo dadka reemiga oo hadba dhinac u ordayo u yaacaya bay ka dhalanaysaa dhibaatadan in xal aynu ka gaarno waara dadkaani ay dad walaalaha wax la isugu daro deegaanka ay wadaagaan wada noolaadaan inta deeqdataa iyadaa way waxaan rabnaa marka qof kasta oo caqli u saaxiiba oo garasho u saaxiiba walaalayaalow doorka aad leedihiin waa idiin bannaan yahay oo colaadaas in lagu joojiyo dadkaasi wanaag iyo khayr lagu dhaqo walaaltinimo lagu dhaqo dad iswada dhalay weeye dad deegaana weeye laakiin cala alaqal marka hore ee xabadda la joojinayo si xabadda lagu joojiyo si ciidanka loo kala qaado waa in ammaanka dadka la sugaa marka waxaan isku dayeynaa inaan kala shaqeyno dawladda galmudug sidii ciidanka isaga ah ciidan loo kala dhexdhigala iskaga soo horjeeda sidii loo ilaalin lahaa amniga iyo nabadgelyada deegaanka iyo dadka si loo wada hadlo ay fursad u helaan dadku ay ku wada hadli karaan odayaasha dhaqankuna ay u talin karaan waxaan ka codsanaynaa odayaasha dhaqanka ee deegaanada ka soo jeeda dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed